dhegeystayaal aynu ku bilaabnay maamulka cusub ee galmudug ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen dagaalkii dhowr iyo 20 saacadood ka socday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. saraakiisha maamulka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidankii la dagaalamayay iyo hogaankii ururka Ahlusunna wal Jamaa, inkastoo Sheekh Maxamed Shaakir uu sheegay inay ku heshiiyeen inay ciidankooda wareejiyaan amnigoodana ay la wareegto dawladda federaalka. dagaalka dhowr iyo 20 saacadood ka socday Dhuusamareeb ayaa dhaliyay khasaare ballaaran oo isugu jira naf iyo maalba, walow aanan lahayn tiro sugan oo ka hadlaysa inta dhimatay, inta dhaawaca ah iyo hantida burburtayba. wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa goor sii horeysay telefoonka Dhuusamareeb kula hadlay Ismaan Ciise Nuur oo ku magac dheer Taar Dhuleed oo dhawaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor uu magacaabay afhayeenka maamulka, wuxuuna marka hore weydiiyay halka uu ku dambeeyay dagaalkii Dhuusamareeb. dagaalkaasi sida hore u sheegnay muddo 4 saac ka badan ayuu ka socday caasimada gobolka Galmudug Dhuusamareeb, waxaana dagaalkaas sabab u ahaa wadada ku jiray intii waxaa hore ka bilaabay magaalada ilaa shalana ka waday. dagaalkaas ilaa xal u socday baadina ala soo hortay xay aroorihii ilaa maantiis caasimada Dhuusamareeb iyo dhammaan nawaaxigeeda maanta waa abni wax sidaa oo ka jiraan ma jiraan dhammaan howlgalkaas ka socdana wala soo gabagabeeyay si nabadgelyo ah. xagee ku dambeeyeen marka ciidankii idin la dagaalamayay dhowr iyo 20 saacadood? waa su'aal fiican. ciidankaas halkaas ku jiray nimanka odayaasha ahaa horjoogayaasha ahaa intuba waxay ku jiraan gacanta dowladda Galmudug iyo ciidamada dowladda federaalka ah. badqabkooda iyo dhammaan xaaladooda waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda Galmudug. ciidamada haddii laga soo tago waxaa jiray hogaankii sare ee Ahlusunna oo ay wadaadadii waaweyneed ku jiraan sida Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir. xagee ku dambeeyeen raggaasi? waa kuu sheegay dhammaan raggaas iyo rag kale intaba gacanta lagu hayaa, way dad qabaan, way caafimaad qabaan, ciidamada dowladda gacanta ku haya. waxaa loo dhaqmay si wanaagsan oo sharaf iyo xushmad leh, wayna fiican yihiin badqabkooda iyo dhammaan amuurahoodana waa hagaagsan yihiin. gacantaana lagu hayaa nimankaas iyagoo nabad qaba, iyaga iyo ciidamadii meesha ku jira maleeshiyaadka ayaga u dagaalamay. maxaa laga yeelayaa marka raggaas sare ee hogaanka Ahlusunna ahaa? wallahi dowladda Galmudug ay u taallaa iyo madaxda sare arrintaas sida laga yeelaya diin haydmo wixii khasaaraha oo halkan ka dhacay iyo dhammaan amuurahaas waxay ku dambayn doonaanba. hadal u jeediyay Sheekh Maxamed Shaakir oo baraha bulshada lagu baahayay wuxuu sheegay in heshiis aad gaarteen sidaa daraadeedna uu u tanaasulay, isla markaana waxay hadda ka dambeeya ammaankooda ay mas-uuliyadda dowladdu qaaday. marka culimadiisu guryahoodii iyo xaafadahoodii ma tegi doonaan? waa maasan tahay. horta culimada guryahoodii iyo xaafadahoodii inay tagaan waxaa ka horeysa wixii dhacay iyo dhibaatadii dhacday iyo haddii la ku roon yahay dhibaatada meesha ka dhacday in xal loo helo in wixii meesha ka dhacay laga heshiiyo. taasaa ka horeysa in guur la tago. waxaad ogtahay meesha dhibaata ka dhacday naf iyo maal intaba leh waa wixii meeshaas ka dhacay in la iska warsada ka horeysa.